inta aad nooshahay ha isku dayin afar waxyaabood in ay noloshaada ay maamulaan. kow waxyaabo hore kuu soo maray. labo fikradaha dadka kale. saddex xiriirro jacayl. afar lacag. haddaba aan idin faahfaahiyo. waxyaabaha hore kuu soo maray had iyo jeer waxa ay kugu yeeshaan saameyn, waxaana ay kugu reebaan xusuuso xun oo gaar ah. haddaba ha isku dayin inaad ka fakarto waxyaabo hore kuu soo maray, waayo taasi waxa ay cabsi ay kaa gelinaysaa mustaqbalkaaga, isla markaana waxa adkaanayso in aad tallaabo hore u qaado. labo fikradaha dadka kale. fikradaha dadka kale oo nolol maalmeedkaada aad ku dhaqdaa waxa ay kuu keenaysaa in maskaxdaadu aysan fakarin, isla markaana waxaad noqonaysaa qof maskaxda laga haysto oo qof kale ra'yigiisa ku shaqeeya. ilaahay baa ku abuuray, maskax buu ku siiyey inaad ku fakarto ayuu kuugu talagalay, ee taada isticmaal, mid kale maskaxdiisa ha isticmaalin. saddex xiriirro jacayl. qofka marka uu kelinimada uu ka baxo oo uu yeesho qof lamaano ah ama xiriir ay wada leeyihiin, inta badan saameyn ayay ku yeelataa noloshiisa. qofkaas waxay ku xiran tahay hadba sida uu yahay. dadka qaar ayaa jira kula dhaqmaya sidii in adigoo cunug yar ah oo hadda dhashay inay ku soo kaxaysteen oo ay ku soo barbaariyeen oo ayaga un aad garanayso. tusaale ahaan dadka qaar ayaa jira kula dhaqmaya in iyaga ay ku leeyihiin. hore ayaan murti uga sameeyey arrinkaasi oo waxaan idhi, islahaansho ma ogoli, aadana xoraan ahay, shalaan adiga kuu imid, horta adiga waan jiray. tan afraad waa lacag. lacagtu had iyo jeer qofka bini'aadanka ah noloshiisa saameyn ayay ku yeelataa, oo waxaa laga yaabaa qofka maalinta uu lacag helo in asxaab badan oo ay saaxiibo ahaayeen oo nafta ay isku bixin jireen in uu ka tago oo uu lacag darteed uga tago. 4 milyan sheegtay 400 xataa arki maysaan. haddaba ha noqonin qof markaa lacag ay naftiisa maamusho. waad ku mahadsantihiin dhegaysiga talooyinkan oo idinla socodsiinayay anigoo ah walaalkiin Cabdirasaaq Bulqaas. inta aan dib u kulmi doono, salaamu calaykum.